Sheekadani waxay nagu dhacday aniga asxaabteeda videogana like saar. Maalinkaasi asxaabteedii aniga waxaan ku wada dheelaynay gurigeeni oo ciyaartu waxay ahayd game. Mid asxaabteeda ka mid ayaa yiri banaanka ayaan aadaynaa. Kadibna asxaabteeda aad bay markaas iigu sheekeynayeen. Waxaan aadnay dabaqa magaalada ku yaala qayb ka mid ah. Waxaana ka soo gadanay wax annaga markaas noo qaase. Balse qof ayaana la hadlay aan garanaynin oo dhanka dambe ka hadlaw yiri waryahay xilligan maxay wada istaagada wax maqlaysiin stop. kadibna gadaal markaa fiiri waxaan arkay 3 nin oo markaas meesha taagan. Asxaabteedii mid ka mid ah ayaa markaas farta ku fiiqay. Anigana aad baan u naxay waxaan isdhaa dadkaani maxay ahaayeen. Saaxiibkeena wuxuu ku tilmaamay inay 3dani budad iyo markaas wataan hub. Kadibna waa ka sii joosannay oo waxaan aadnay xagga iyo markaas xaafadda. Balse saa una soconay asxaabteeda mid ka mid ah ayaa yiri halkaas haddaan ku dheelna saaxiib ka waran waa meel lagu dheelay. waan ka ogolaanay. Balse nimankii ayaa markaas hadlay oo yiri war raggan rag wax maqlaaya ma ahana hala burburiyo hala ceersada budadka aawe noo soo bixiya dila dhammaantood. kadibna waan cararnay asxaabteedii aniga dhan waa cararnay. Telefoonka ayaa markaasi aabe iga soo wacay. kadibna waxaan jeclaaday inaan ka qabta aabaheyna wuxuu yiri waryaha xaggee jirtaa xilligan aaba waa lay ceersanayaa tuugo ayaa ceersanayso xaafadda ayaa u soo dhawahay. xaafadda markaa imaadana wax kasta ayaa u sheegay asxaabteedina way la socdeen. wax kastoo dhacay markaan u sheegay aabahey wuxuu dalba boolis. Arrintana waxay ahayd arrin markaasi aad u weyn balse dariishadda ayaa markaasi furay. kadibna booliska ayaa markaasi noo imaaday. balse arrintana waxay ahayd arrin markaasi maskaxdeeda kusoo noqoto waayo raggaas waxay rabeen inayna dilaan. booliskana waan u sheegay wax kastoo markaasi dhacay. aabaheyna meesha wuxuu ku dhajiyey kaamera markaasi CC oo wax kasta duubayso. kadibna habeenkii aniga waan seexday oo arrintan dhan waan iska iloobay. saan u jiifay ayaa hal mar soo kacay waayo waxaan dareemay shanqar. waxaan ismoodayay inaan markaasi riyo ku jiro. geeskayga markaan fiiriyey waxaan arkay qof markaasi meesha taagan dhanka daaqadda ka soo galay. aad baan u naxay. markaan sii fiiriyeyna wuxuu ahaa ninkii dhahayay war hala dila nimankan hala dilo hala gogoyo dhammaantood. ayuu ahaa ninkaas ayuu ahaa. kadibna aabahey ayaa soo galay oo markaas isagoo qaylinaya oo yiri waryaa burcad yow wiilkayga ayaa rabtaa inaad disho hurdada ayaa rabtaa inaan ku gaadhiyo ganac yow ganaca laga kala jirin. kadibna wuxuu yidhi waryaa soco booliska u yeer meesha riyo looma joogo run ayay u dhacaysaa qisade. kadibna booliska markay imaadeen ninkaani waxay sheegeen inuu yahay nin burcad ah. aabaheyna waan u mahadceliyey oo waxaan dhahay aabba waxaa tahay mid aad markaas u mahadsan. ninkiina waa la xiray balse aniga waxaan moodaya arrinta inay riyo tahay. camera CCdana wuxuu ka arkay ninkaani inuu meesha ka soo galay. anigana aad baa markaas u yaabay sababtoo habeenkaas hataan jiifi lahaa aabaheygii intuuna iga soo gaarin ayuu ninkaasi halkaas igu dil lahaa. waxayna ahayd sheeko markaas aad u xanuun badan. videoga hadduu dhammaaday like saar waana mahadsantihiin dhammaan asxaabta qaaliga.